waxaa jirtay in ururka argagixisada ay shabakad ay ka sameeyeen shabakada kolkii ugu horeysay waxay ku bilaabatay in odayaal dhaqameed gobolka Afdheer iyo gobolka Liibaan iyo qaybo gobolka Shabeelle ka mid ah in odayaal dhaqameed looga yeeray Soomaaliya oo uga yeereen magaranaysa ururka argagixisada odayaal dhaqameed kaas oo kolka horeba iyaga xiriir la siilaha ayaa looga yeeray odayaashaas waxaa la qabatiyay in magaranaysa gudaha wadanka Itoobiya sidii magaranaysa urur al-shabaab ah loogu beeri lahaa inay ka shaqeeyaan iyagoo magaranaysa adeegsanaya odayaalnimadooda iyo aaminaada dadka shacabka gudihiisa ay ku leeyihiin qorshahaas al-shabaab ay ka soo qaateen qorshihii ay al-shabaab ka soo qaateen u fulay oo magaranaysa waxay bilaabeen markii ugu horeysay inay dhalinyaro magaranaysa ay leeyihiin waxbay Soomaaliya ka soo baranayaan in laga qaado degmooyinka sida degmada Ceelkarre oo kale sida degmada Sharrati oo kale iyo degmooyin kale oo labada gobol ee carabka ku soo dhufanay hoos yimaad ayaa laga qaaday dhalinyaro waxaa la geeyay Jilib iyo Saako meel la yiraahdo iyo degmo Jilib la yiraahdo koonfurta Soomaaliya tababar iyo ururka argagixisada halka ku soo siinay tababarka la soo siinay dhowr nooc uu kala ahaa qaar magaranaysa waxay soo qaadanayeen qarax ama qaraxyada magaranaysa imka Soomaaliya aan ka aragno oo kale waxa noqdaan ama miilooyinka wadada la galiyaa waxa noqdaan qaar qarax bay magaranaysa ay soo qaadanayeen qaar tababarka caadiga ah ee ciidanimo ay soo qaadanayeen marka dhalinyarada kolkii ay soo tababartay tababarkooda ay soo dhameystaan gawaarida magaranaysa caadiga ah shacabka iska soo raacayeen hogaamin gudaha sii joogtay oo magaranaysa gudaha sii joogtay bay u iman jireen hogaamintaasina waxay u sii kala diri jirtay reerahoodii inay magaranaysa inta looga yeeray ay sii joogaan tababarkii waxoogaa kolku socday kadib waxa iyadana magaranaysa ay suurto geliyeen in hub la soo raro hubka kolkii ugu horeysay waxa la bilaabay in hub trayer gawaarida xamuulka ah ee rarka wada sagxadda in hub trayer loo soo dhigo markii ugu horeysay 10 qori baa lagu tijaabiyay 10 qori kolkii ay soo xaroodan kadib 20 baa lagu tijaabiyay way soo xaroodeen markii ugu dambeysay 100 qori oo sagxadda magaranaysa waa dareemaysa qoriyo magaranaysa la isticmaalin oo bacdeedii iyo waxoodii ku jira kolka sagxadda la soo dhigay wax yar bay qaadanayaan inta kale run baa loo korreysiinay qalabkii magaranaysa wax lagu baadhayeen xadka inta badan ma yaalo rarkana inta badan lama wada jiyo marka hubkuna qaab noocaas ku soo galay kolku soo galay uu soo galay hubku intiisa badan degmada Ceelkarre baa la keenay waxaa loo dhiibay niman wakiilo ah oo magaranaysa al-shabaabta wakiilka ah yaa loo dhiibay nimankaasina dad tira yar oo magaranaysa aad u kooban iyo magaranaysa intay soo kaxeeyeen iyo aasan dadka hubka la aasaya ugu badnaan 4 ruux iyo hubka aasis hubka ugu badnaa aan hal goob ka soo saaro 60 qori buu ah 50 akay iyo 10 baasuuke iyo ahaan hubka ugu badnaa aan hal goob aan ka soo saaro hubka idil waxa aastay 4 nin baast 4 nin oo waliba qaraabo isu dhow ah 4 nin oo seminaar adag Soomaaliya ka soo qaatay oo dhaarsanayaal ah oo wakiilada meesha fadhiya ayaa aasay marka hubkuna magaranaysa qaab noocaas iyo ku soo galay qorshaha marka al-shabaab ay dabacsaneed wuxuu ahaa hubka 4 gobol kolkii lagu dhameystiro hubka magaranaysa tirada la isla qaatay lagu soo dhameystiro in marka ugu dambaysa ciidankii oo isaguna la dhameystiray hubka lagu taago isagoo magaranaysa rajaajadkiisii ama dhismihiisii uu dhameystiray in magaranaysa hubka loo kala dhidibo oo ciidankii oo magaranaysa unugtii iyo kooxdii iyo horintii iyo ururkii iyo guutadii u kala dhisan hubka in lagu taago in magaranaysa dagaalku uu sida uu ku bilowdo
iyo qorshahooda ah qorshaha labaad ee kale ay lahayn dagaalku inuu degmooyinkan kaliya ka bilowdo ma una ahayn waxay jiray niman Soomaali ah oo u dhashay degmada Ceelkari waxay jiray niman Soomaali ah oo u dhashay degmada magaranaysa Jarati oo iyaguna qaybta Oromiya al-shabaab shabakad al-shabaab ayadana waxa laga sameeyay qaybta Oromiya marka qaybta Oromiya bay hubka u gudbin jireen marka dagaalku inuu deegaankeena kaliya ka bilowdo ma una ahayn buuraleyda Baali iyo buuraleyda magaranaysa Miraab Hararge inuu magaranaysa ayuu ka bilowdo ama galbeedka Hararge inuu ka bilowdo iyo qorsho iyo ahaa أنا كسبناهاي قبلها حتى كسبناهاي حاضر واستيعابها iskudaygii taariikhda marka ay saddex tobankii iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka burcada ee argixisada al-shabaab xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeena la wadaago iskuday ayay ka sameeyeen iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxa weeyaan harihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen laakiin waa ku fashilinay anna hadda waxaan kala hadlayaa qowlaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno majira been weeyaan ururka argixisada al-shabaab waxay sheegtaan wax asaatir weeyaan wax beero weeyaan waxba ka jirin waxay dadka ku rabaan argixisada caalamka ay dadka ay ku geliyaan weeyaan waxaasi hadda aata ayaa kala hadlayaa in wada joognaa aata anaga joogna ciidanka deegaanka ayaa ku sugan xaaladdu meel fiican bay maraysaa awood iyo xoog ay dowladda ay al-shabaab hadda ku furato oo dowladda Itoobiya ciidamada Itoobiya deegaanka ay maanta khasaare iyo jab ku gaarsiisan malaha waa urur argagixiso oo waxa weeyaan caalamku og yahay oo jabaleynaya oo qudfo ka dhaqaaqa wuxuu ayagu isku day ay sameeyeen waa fashilin weeyaan taaba ku sheegay waxba isagoo weerarkii al-shabaab ku qaaday xeryaha ku yaala saddexdaas tuulo ee xuduudda dhaca waxaa maalmihii la soo dhaafay uu dagaal ku dhex maray iyaga iyo ciidamada liyu booliska qabalaha huluul ee gobolka Afdheer taliye ku-xigeenka ayaa dhinacooda sheegay inay guul ka gaareen dagaalka gudaha qayb soo gashay waxa weeyaan dhammaan waxa ka gudbay 15 gaari baa ka gudbay oo huluul nahawi midnigada gobolka Afdheer ee garaaciidanku ku dayrayahay dhinac kasta waa ka taaganahay baaqadoodii waa afteena insha Allah ilaa afar oo taasiraar ma soo afjaro qabalaha huluul weeyaan tan kasta ciidanka ayaa ka taagan qaybtooda way isdhiibeen waa niman shaqo weeyaan oo meel kasta ciidanka deegaanka ayaa ka taagan oo soo afjarayna weeyaan wax iyaga caqabad saasana oo ama culays saasana ma jiraan waa wax hadda soo afjarayno waa ka haynaa iyaga meeshaas iyaga ciidanku jooga maxaabiistii iyo waxa weeyaan daawacoodii hadda halkaas ayaan ku haynaa huluul baan ku haynaa dhibashada dhankooda ilaa hadda waxa weeyaan 150 dhibashadu hadda kor dhankooda way jirtaa ilaa 150 xubnood oo dhibashada hadda ciidanku uu ka taagan yahay oo aagu waxa weeye hadda iyaga uu ka socday maxaabiis fara badanna way jirtaa waa tahay dhanka ciidanka deegaanka maxaa khasaare ka soo gaaray dagaaladan soconay khasaaro walaal aad buu yaryahay khasaaro dhulka inagu maadaama inagu deegaankeena yahay oo inagu aan awayaan ciidan habaysan oo dowladeed nahay waxaana jabhad inta go'an oo ajnabi ay tahay khasaaro saasi ma jiro inagu aad fiicanahay wax khasaaro hadda saasi ma jiro wayaan sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaan weydiiyey waxa xilligan keenay in kooxda ay gudaha u soo galaan deegaanka bila ka hor degmada Ceelkari akabaadeeda qaybaha ay soo geliyeen oo jabhad soo geliyeen ayaa ku soo jarrabeeyay hubkii saarar badan aan ka qaadnay walaal waxa weeyaan nimankan waa cadawga bini'aadamka weeyaan waa niman argagixisa oo caalamka argagixisa ka isku dagooda iyo jabhadooda iyo laatooduna waa wax iska jira weeyaan oo inta badan caalamka laga yaqaano waxaad ogtahay in hadda ka hor deegaanka gaatan aata iyo qadaraha gobolka Afdheer isku daya ay ka soo sameeyeen oo darbaha ku fadhay sida la xadiyay cadawgu markasta waxaan waa gudaha Itoobiya maadaama hadda ka hor ayna soo gelin isku day ay sameeyeen ayaa jira oo bilay hore fashilinay kanakii uu daba socdaa isku day aan u suuroobaynin nimanka taan ognahay maadaama dalka Kenya iyo Soomaaliya ay caqabado ku hayaan gudahooda oo ay dagaalo ka wadaan sida mid dagaalada mid la mid ah ay rabaan gudaha Soomaaliya ay gudaha Itoobiya ka sameeyeen oo mar suuragalayo waa mid ka diyaar garoobay isku dayadoodii waxay ay dalka aan dalka nahay ay ka wadeen mid ka mid ah oo bay rabeen inay inaga khiyaamada ay soo galiyaan waana ka diyaar garoobay
ugu dambeyn taliye ku-xigeenka ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka soomaalida zakariya cabdi khaliif ayaa sheegay in xilligan ay u diyaar garoobeen in al-shabaab ay kula dagaalamaan gudaha Soomaaliya. halkan aan ka hadlayo taa guud ahaan xadka deegaanku uu xiran yahay xaaladuna meel fiican ayay maraysaa isku dayana waxa weeyaan iyo qaraxyadan iyo cadaawadan ururka argagixisada al-shabaabna waxa weeyaan saan rajaynayna waxa weeyaan waxaan rabnaa halkay joogaan inaan ugu tagno oo xitaa gudaha Soomaaliya ay dhibayaan caqabadaha ku hayaan inaan kaabaga deriska ka nahay inaan ka horeyno ayaan rabnaa oo noqoshaysan ciidankayguuna gudaha Soomaaliya ayuu galay oo waxa weeyaan qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya ayaan u talawray oo ay fadhiyeen oo guud ahaan xadka meelaha ka dhawaada ka saaray. inkastoo taliyuhu uu sheegay in howlgalkan la soo gabagabeyn doono saacado kooban kadib, haddana waxaa adag in la ogaado khasaaraha ka dhashay dagaalkan maadaama ayna isgaarsiin ka jirin goobaha dagaalku ka socdo. ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kale al-shabaab ay ku qaadaan deegaanadani dhaca xuduudka dalka Itoobiya iyo Soomaaliya, balse sanadkii 2014 ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen kooxda al-shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan ku suganahay wadanka maalinta way dagaal ba ka dhacay, dagaalkiina waa lagu guuleystay al-shabaab waa lagu jiriyay ilaa saacan bay dhaawacoodii iyo meydkoodu meel ku xabaalaan la yihiin. ciidamadii deegaanka oo meel walba ka soo gurmadayna way soo gaareen. wadanku nabad ba ka jirta hadda ciidankii dowladda Itoobiya iyo tii Soomaaliya iskaashanayana way joogaan. shabaab waxay ka gudbeen oo ay mareen dhinaca Aato. marka qasaaraha ka dhashay markii halkaas ay iskoorimaadadu ka dhaceen intuu leeka baabuur yar oo dhowr xabaada gudubtay oo qorshe kale oo mataqaana al-shabaab barbar socday oo kale ay ka shaqaysanayaan. hawshaana waa la soo absharay oo wax hadda ka dhiman ma jiro. kuwa halkan joogana casarradii dowlad meel la siiyey oo loo degdega la siiyey hadday gudaha tahay iyo hadday mataqaana hadda xafiiska aan joognahay tahayba si guul iyo nabadgelyaha loogu guulaystay al-shabaab iyo cadowgaanka ku soo duulay. deegaanka Aato ayaa ku sugan hadda. annaga labada dowladood ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya ee koonfur galbeed intuba waan joognay deegaanka markuu dagaalku ka dhacayay. waxaa ciidamo amni ah u jooga ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee New Boris baa hawshaasi iska lahaa. asagaa qorshe u qaatay, asagaa wadanka ka saaray, asagaa laayay cadowga u soo duulay deegaanka. hadduu dhanka Soomaaliya ka yimid iyo hadduu dhankana mataqaana u socdayba cadowgaasi waa laga hortagay. ciidanka dowlad deegaankana ku guulaystay inay ka hortagaan waajibka ay lahaayeen ay siiyaan. ma la dhihi karaa waxyaabihii suurtageliyey in al-shabaab ay gudbaan oo xuduudda ka gudbaan waxaa ka muuqanaya in habacsanaan aad u fara badan ay jirto? wax habacsanaan oo jirta ma jiro. waxaa gudaha galayna dad mataqaana al-shabaabka barbar socday oo ururo galaa inay yihiin yaa laga sheegayaa. wax kaa usii badanna ma aha. gaadiid yar baa gudaha galay oo kuwiina si daqiiqada lagu soo absaray, kuwii mataqaana weerarka soo qaadayna sidoo kale oo casharaa loo sameeyey. hawshaa marka si guul iyo nabadgelyaada kaga soo dhamaatay meesha. maxaad ka haysaa dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacayay gudaha dowlad deegaanka ee u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada maamulka? aniga al-shabaab warka igu shaqaysa buurmuxolle iyo meel u dhaxaysa waajib inay meyd ku xabaalanayaan. qaarna ay ikraalle meydki kaga tageen, qaar ay meel la yidhaahdo lagalay ku xabaaleen, qaarna ay kaga tageen. meel walba New Boris baa nabada taagan inay leeyihiin oy sii baqanayaan baa naloo sheegayaa. kuwa gudaha galayna baabuurkii waa laga qaaday. shalay sad u arkayseen dhaqadkaa lasoo dhigay iyaga iyo baabuurtoodii wax noola lagu qabtay iyo gaadiidkoodii la qabtayba. hawshaa marka sidaasaa lagu soo absaray. wadanku hadda waa nabadgeliyo. dowladihii awalba maamul ayagaa jooga, dadka shacabka si labadaba ku joogaa. cid mataqaanaa meel ka dhaqaaqoyna ma jirto. waa la soo afjiray baad leedahay dagaalkii. marka xaggee ku dambeeyeen ciidankii tiraha badnaa ee shabaab ee galay gudaha? ciidankii al-shabaab waa midka laga hor imaaday ciddi gudaha gashayna lasoo absaray. ciddi kalena casirada loo dhigan kuu sheegayna wey. way soo carareen. waxay ku jiraan meelihii awalba ay ku gabanayeen gobolka Bakool kale meelihii ay ka haysteen sida Buurbuxin kale meelahaasi ay ku dhudhumaanisan jireen ayay mataqaanaa haddaba ku jiraan. weli lama duulin oo hadda dee mataqaanaa intii la duulay meelihii bariisimadooda ahaa sida la galay garas weyne Buurbuxin kale lama tegin. laakiin inta ka sokoysadan hadda ciidamada dowladda jooga meelahaasi awalba ayagu ay joogeen way ku baqdeen oo meydkii waxay ka carareen. mooyaha wixii kale way geysteen oo way ku xabaalanayaan. halkaa waxa nooga sokeeyo al-shabaabna ma ogi. laakiin dagaal marka uu dhaco khasaaro waa u imaanaya labada dhinacba. adiguna hal dhinac unbaad khasaaraysa sheegaysaa. waxa weeyaan khasaaraha meeshii awood ay joogta khasaarahooda wuu yaraanaya. meel walba ciidan baa taagnaa.
طريق والبساطة وطياب ولا قد ودقاتيني مرة خسارة أيضا بسوق يعني قد خسارة كلاهي جاسية وحتى ما تحدد المسؤول. waxaad leedahay annaga wax khasaara na soo gaaray ma jiraan miyaa hadduu jirana wax yar oo naf lahayn oo hadda waxaan ka soo qaatahaysan marka iyaga loo dhowraysan macno lahayn arrintan waxaa ka dhashay dood ku saabsan in dhinaca sugidda ammaanka maamul ahaan iyo ciidan ahaan idinka hoos baxday oo habacsanaan ay jirto marka arrintan maxaa idinka qorshaysan anigu waxaan ka midahay dowladda koonfur galbeed amniga ugu weyna waxaan ka kaashadaa dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaalida kuwa Soomaaliyana waa joogaan taa marka waxa habacsanaan oo ka jirta iyo mataqaanaa wax wanaag oo ka jira mooy waxa habacsanaan oo halkaa ka jirta ma jirto dagaal lagu dhaxaa waa isku dayayeen isku dayoodina kulli fashilka ay ka qaadeen iyo dadka ka soo gaaray waxaana la mataqaanaa hadda idin sheegay ma dib aad ogaan doontaan weeye waqtigaas waxa uu ahaa gudoomiyaha